gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faysal Cali Xuseen ayaa waxa uu sheegay inay muddooyinka ugu dambeeyay jireen shakhsiyaad si weyn uga howlan inay warar been abuur iyo propaganda ay ka faafiyaan mashruuca biyo ballaarinta caasimadda magaalada Hargeysa oo iminka maraya meel aad iyo aad u wanaagsan shacabka ku dhaqan caasimaduna ay ka filayaan iddiilo wanaagsan isla markaana waxa uu tilmaamay inay jiraan shakhsiyaad kale oo iyagu hoshir doonaya inay shirkado aan awood lahayn ay ku raadsadaan qandaraaska mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa isagoo si weyn u amaanay mareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa Maxamed Cali Axmed Daaro hawsha baaxadda leh oo hayo injineer Faysal Cali Xuseen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka waxa uu sidaas sheegay mar uu warbaahinta kula hadlayay guriga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa aad u boorinaya mareeyaha biyaha wad ogtiin lacagta lagu shubay ee Soomaaliya Hargeysa biyo lagu sameeyo waxa jira dilaalin yar yar oo hadda doonaysa in mashruuci kastaba ay dilaalaan oo dadka ka naxeen mashruuca lacagtiisa waxa badan waxa bixisay waxa weeye Jarmalka bixiyay dawladda Jarmalku waa dawladda ugu deeqta badan baa weeye Soomaaliland hadda waxay noo sidaan inoo soo wadaa iskuulo ah technical schools waxa leenahay laga daayo maareeyaha magaranaysa musuqmaasuqa iyo dilaalista meeraysanaysa waxa leenahay madaxweynaha waa inaan birka la sameeyo si cadaalad loo sameeyo mid kasta wuxuu soo kaxaysanayaa company yaro aqoontiisa iyo ikumadkiisa aan hagaagsaneen oo lacag baan siinaya isoo iyo campaign gareeya halaga daaliyo birka marka la furiyo bahalaha laga daayo campaign dhalinyarta yar hadda hunguriga la soo baxdayna waxa leenahay xishooda dhalinyarta xishooda inta madaxtooyada soo dhegdhegaysaan ilaalinimada joojiya baan leenahay Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.